kursan kara gabadh aniga iyo hooyadeed galmo xaaraan ahna dhaxmartay maxaad adiga reerka ugu wareejaysanaysaa ma banaanka martay daba duqdii fadaraysay maxaad gabadha laga rabto waa fuxshi waa mas'ala ay culimadu hore uga hadleen laakiin waa baa edab darro dhan way culimadu way isku khilaafsan yihiin haddii aad duqda gabadha dhashay haddaad xumaan ku samayso ama aad xumaan wada samaysaan gabadheeda ma guursan kartaa haddaadse gabadha xumaan ku samayso hooyadeed ma guursan kartaa waa mas'alo khilaafiya bayna alculamaa alimaamu shaafici imaamu maalik fi lmuctamad ibnu lmundir iyo culimo la mida waxay leeyihiin xaaraan kama ahe wuu guursan karaa الإمام الشافعي في الأم وحكو عليه لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال وحو حرامية والنكاح حلال ساسو كوضع نكاح حلال مركو هو يدو قبطو بي قبض يدو حرام كان نقط قبض مركي نكاح حلال كو قبطو بي هو حرام كان نقط مركا حلال باو حراميسي لكن حرام oo zina ah oo guurkii xalaasha ah xaraamaysan lama hayo buu leeyahay Imam Shaafici saasay u doodayaan culimo dhanka kala qabana waa jiraano Abu Hanifa iyo Ahmed ibn Hanbal iyo waxay leeyihiin maya maadaama midood aad muxuu ahay aad ka zinaysatay tan kale laguma ogola banaanka mar bay leeyihiin saladaasi marka waa mas'ala muran ku jiro laakiin wax daliil oo cad oo diidayo xarimayo ma jiro shaygan marka la leeyahay waa xaraan oo guurkeedu waa ka xaraan daliil bay u baahantay bal umumka aayada quraanka waxa laga faa'iideysan Allah yiri tabaaraka wa taala markuu ka waramay dumarka aan la guursan karin markuu Ilaahay soo tiriyay wuxuu yiri wa uhilla lakum ma waraa dhalikum inta la idin sheegay wixii ka soo haray waa la idin xalaaleeyay umumkeeda waxa laga faa'iideysan inay raajixto xoog badan tahay inuusan guurku uusan xaraam ahayn oo uu guursan kara wax nasoo diidayna ma uu jiro masaladuna waa khilaafiye way wallahu a'lam